بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن وعل صاحبada qiimaha qadarinta iyo qaayaha laga mudalow meel walba joogtaan iyo marxalad walba aad lagu daawaleysaan waxaan ahooda idinka leeyahay Ramadaan Kariim, Ramadaan Mubaarak. وهجاج maanta waa maalintii 11aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana muuqaal kan ku soo qaadan doonaa mowduuc markaa la xiriira shaqada iyo markaa soonku sida markaa la isku waafajin lahaa. Socdaal Training Company waxaad ka heli kartaa qalabka elektarooniga noocyadiisa kala duwan sida qasaaladaha, fariijyada noocyadooda kala duwan, dhalooyinka TV-yada guryaha, mukaafiyada, kuukarada noocyadooda kala duwan iyo sidoo kale haamaha gaaska yar iyo weyn iyo dhammaanba noocyada qalabka elektarooniga ee loo isticmaalo guryaha. dhammaan agabyadan kala duwan waxaad ka heli kartaa xarumahooda kala duwan sida xarunta weyn ee ku taala moolka Macallin Biimaalow oo ku yaalo kasoo horjeedka masaajidka Macallin Biimaalow iyo xarumahooda kala duwan ee suuqa Bakaaraha. wixii faahfaahin taadeeri ah kala xiriir telefoon lambarada shaashada kaga muuqda. وهجاج صاحبيال qodobada aan dul istaagi doono inta muuqaalkan aan ku guda jirno waa shaqada iyo cibaadada markaa sida qofku uu isku waafajin lahaa iyo sida markaa saacadaha qofku uu firfircoon yahay mudlaanta u kala siin lahaa waxyaabaha markaa hortaminta leh sida markaa shaqooyinka culculus iyo sidoo kale cibaadada markaa xilliyada hore markaa uu qaban lahaa. waxaa kaloo eegi doonaa sirta suxuurta caafimaadka ku jirta iyo in markaa qofku uu helo nasasho kooban inta markaa lagu guda jiro maalinta bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sida markaa dabeecadaha qalafsan qofku uu iskaga ilaalin lahaa ayaan eegi doonaa hadduu Allah uu dale raali ka noqdo. gabagabadii waxaan eegi doonaa daawadayaal xigmadaha culimada ee markaa la xiriirta iswaafajinta dabcan shaqada iyo sidoo kale ramadaanka ama soonku. quraankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xiriirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko. soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkan waxa uu ka mid yahay muuqaalo taxana ah oo aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan inta lagu guda jiro in markaa daawadayaasheenu aan u soo baahino si markaa wax uga faa'iideystaan ahmiyadda bisha barakeysan ee Ramadaan iyo waxyaabaha markaa muhiimadda inoo leh ama markaa ay tahay in aan sameeyno soddonka maalmood ee bisha barakeysan ee Ramadaan. maalin kasta oo ka mid ah soddonka bisha barakeysan ee Ramadaan waxay daawadayaasheenu daawan doonaan muuqaalo markaa ahmiyadda bisha barakeysan ee Ramadaanka markaa la xiriira. mar kale kulan wacan saaxiibada qiimaha qadarinta iyo qaayaha naga mudalow mowduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay shaqada iyo soonku iyo sida markaa qofku uu isku waafajin lahaa. waana maalintii 11aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. dadka sooman waxay inta badan markaa la kulmaan caqabado xilliga shaqada sida markaa firfircoonida oo markaa yaraata ama saacadaha hurdada oo markaa isbedel ku yimaada. haddaba halkan waxaan ku haynaa habab markaa wax ku oola oo aad isku waafajin karto gudashada markaa shaqada iyo sidoo kale cibaadada markaa soonka. hagaaga shaqadu lafteedaba waa cibaado ee sidee markaa isku waafajin karnaa cibaadada iyo shaqada. haddii aynu eegno waxa ugu horeeya ee markaa loo baahan yahay waa in markaa niyadda la saxo shaqadana markaa xalaasha ah ee aad markaa qabanayso
ama aad u qabanayso qoyskaaga ama bulshadaaduba waa cibaado markaa ajir laga helayo in markaa qofku taasi uu niyeysto ayaa loo baahan yahay. haddii aad sooman tahay ajarkaas waa uu sii kordhiyaa. ha u arkin shaqada markaa inay kaa hor istaagayso cibaadada kale ee markaa aad qaban lahayd, ee u arag markaa inay tahay cibaado iyada laftirkeedu aad qabanayso alle subxaana wa tacaala uu kaa siinaya ajir. qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko. maaray saacadahaada firfircoonida maadaama heerka tamartu markaa uu isbedelayo maalintii. raac qorshahan subaxdii hore qaba shaqooyinka adag ama kuwa u baahan fikirka badan ama xoogga, waayo jirkaagu waxa uu markaa haystaa tamarta saxuurta. duhurtii kadib marka gaajadu markaa ay bilaabato qaba shaqooyinka fudfudud sida ka jawaabista iimeylada, habeynta markaa faylasha ama sidoo kale kulamada aan culayska badan lahayn. haddii aynu eegno daawadayaal sirta saxuurta caafimaadka leh, shaqadaadu waxay ku xiran tahay waxa aad cuntay saacado ka hor. cuntooyinka haddii aynu eegno waxaad cuni kartaa cuntooyinka markaa misirta ama sidoo kale khudaarta oo kale, kuwaasi oo markaa tamartu si tartiiba u sii daaya. sidoo kale waxaa loo baahan yahay in qofku uu biyo badan cab biyo kugu filan inta u dhexaysa afurka iyo saxuurta si markaa aad uga fogaato haraad iyo madax xanuun xilliga shaqada ah. ka fogow cusbada iyo sidoo kale kafeyga faraha badan. cusbadu waxa ay keentaa haraad, kafeyguna waxa uu markaa kaa saarayaa ama jirka uu ka saarayaa biyaha. qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko. naso wakhti kooban inta lagu guda jiro maalinta ramadaan. haddii saacadaadu ay markaa ku ogoshahay isticmaal 15 ilaa 20 daqiiqo oo nasasho ah xilliga markaa duhurtii oo kale, si markaa aad u hesho nasasho yar oo aad markaa dib ugu soo ceshato firfircoonidaadii maskaxda iyo midii jireedba. waxay ka caawinaysaa in markaa aad dhammaystirato saacadaha kuu dhiman ee shaqada. iska ilaali dabeecadaha qalafsan maalinta markaa la jooga ramadaan, inkastoo marka ramadaanka markaa laga gudbo xitaa aysan wanaagsanayn in markaa aad la timaado ama bulshada aad kula dhaqanto dabeecado qalafsan. dadka qaar ayaa u adeegsada soonka marmarsiimo ay dadka markaa kula dhaqmaan si xun ama ay ku qeeliyaan iyaga oo ku marmarsimoonayo in markaa ay sooman yihiin. waxaa loo baahan yahay in markaa qofku uu xasuusnaado in akhlaaqdu ay qayb ka tahay soonka. shaqaduna waa goobta ugu weyn ee markaa lagu tijaabiyo samirkaaga. wada shaqaynta u naxariiso asxaabtaada shaqada haddii ay yihiin kuwa sooman iyo haddii kaleba. dabcan tani waxay ka dhigan tahay in maalinta ramadaanka keliya aan loo baahneen in dadka asxaabtaada ah ee shaqada kaala dhexayso aad u asxaanfasho u naxariisato, ee loo baahan yahay in bilaha kale ama maalmaha kale ee ramadaanka ahaynba in markaa aad dabeecad wanaagsan kula dhaqanto oo asxaanfasho, islamarkaana aad garab iyo walaal intaba ka dhigato qofka walaalka ah ama asxaabtaada ah ee shaqadu markaa kaala dhexayso. maamulidda kulamada iyo sidoo kale safarka ayaan markaan eegi doonaa. haddii aad leedahay kulamo, isku day markaa inaad ka dhigato saacadaha hore ee subaxdii. haddii ay markaa tahay safar shaqo, qorshay sidii uusan markaa u saameyn lahayn soonkaaga oo aad uga dhigan lahayd waqtiyada ugu horeeya ama markaa saacadaha hore subaxdii oo markaa aad u adkaysan karto ama jirkaagu markaa uu leeyahay enerji aad u fara badan. waa haddii socdaalka ama safarka uu yahay mid gaaban oo waqtiyo kooban markaa ama saacado kooban ku soo gabagaboobayo. xigmadaha culummada ee shaqadu haddii aynu eegno, culummadu waxay dhihi jireen geesiga ma aha kan markaa sooman ee iska seexda
ee waa kan sooman asigoo u adeegaya makhluuqa alle. soonku waa inuu ku siiyaa xoog gudaha ah ee ma aha inuu kaa dhigo qof markaa daciif ah. gebagabadii shaqada iyo soonku isma hortaagna. marka aad si hufan u shaqayso adiga oo sooman waxaad muujinaysaa quruxda islaamka iyo awoodda uu soonku markaa u leeyahay in qofku uu edbiyo. qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko. guud ahaan daawadayaal muuqaalkeenii maanta intaas ayuu ku egyahay waxaana uu ka mid ahaa muuqaallo taxano ah oo aan ugu tala galnay inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan. ربي توصف